بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسنا قيارتا نلا سعوتا ميل كستوا دونيدا كجوكتان كسو دوادا عاوا iyo barnaamijka faaqidaada caalamka iyo la fagurka diblomaasiyadda waa 22 bisha June sanadka 2026 qodobadaan idin hayana waxa kamid ah dawladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ayaa lagu soo waramayaa in laga qafiifiyay cunaqabatayntii dhinaca shidaalka ee saarnayd dawladda Washington war ay soo saartay ku saabsan arrimahaasi hasaatee canshuurta ayaa dib loo dhigay marka la fiiriyo tilaabooyinka caawa wasaaradda maaliyadda ee dalka Mareykanku ay sheegeen haddaba nuxurka warkan muxuu ka dhigan yahay suuragal sama noqon karta dawladda Iran in lagu soo dumi doono hogaamiyaha arrimaha wada xaajoodka u qaabilsan dawladda Iran ahna gudoomiyaha baarlamaanka wadankaasi Mohammed Baqir Qalibaf ayaa socdaal ku tagi doona wadanka Oman isagoo la kulmaya boqor haythamka hogaamiya wadankaasi sanadihii ugu dambeeyay labada dhinac waa Oman iyo waliba dawladda Iran waxay noqonayeen kuwa isku soo dhawaanayay marka la eego qadiyada marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz matalaabo cusub oo marinka lacag looga qaadayo ayay iska wareysan doonaan muxuu yahay qorshaha adag ee dawladda Iran ay geyn doonto Masqat barnaamijka caawa ayaan ku eegi doonaa qodobkana dhinaca kale dawladda jamhuuriyadda islaamiga Iran ayaa sharti ku xirtay la xiriira hay'adda atomikada qaramada midoobay guddiga ka socda in ay gaaraan xarumaha nuclearka ee wadankaasi arrimahan ay soo bandhigeen dawladda Iran ayaa noqonaya mid wadna qabad ku noqon kara dawladda Washington Mareykankana saddex wadan oo kamid ah Carabta waxa booqan doona xogayaha muraha dibadda ee Marco Rubio ujeedadu waxay u badnaan doontaa mid la xiriirta wada hadalka Iran iyo dhaqaalaha laga qaadi doono wadamada Carabta qodobadaas iyo warar kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka caawa iyo la fagurka diblomaasiyadda khiyaarta ay nala socotay meel kasta oo dunida ka joogtaan soo dhawaada kuna soo biiraya YouTube-ka oo subscribe saar iyo laga gaaro bisha Agosto ee soo socota dawladda Mareykanka ayaa cunaqabatayntii ka qaaday arrimaha shidaalka ee wadanka Iran ujeedadu waxa lagu macneeyay inay tahay mid looga gol leeyahay in dhaqaalaha wadankaasi oo kobcitaan sameeyo isla markaana Tehran ay abuurto niyad wanaag la xiriira dhinaca Mareykanka maadaama ergada ka qayb galayay shirka Switzerland ay ku dhawaaqeen in aanay aqbali karin dawladda Mareykanka tilaabooyinka ay qaadayso dawladda Washington ayaa isniinta maanta ahayd ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah ay u hakisay cunaqabatayntii saarnayd ganacsiga saliidda Iran taas oo la socon doonta baalidi ilaa iyo 21 Agosto ee sanadkan asi lagu sheegay heshiiskiisa afgaradka ah ay dhawaan wada gaareen Washington iyo Tehran wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa bayaankan soo saartay ee ku sheegtay in dhammaan howlgalladii hore ee la mamnuucay ee la xiriiray soo saarista iibinta iyo waliba gaadiidka shidaalka Iran ay hadda si kumeel gaar ah u ogol yihiin ilaa iyo 21 Agosto saacada markay ay ku beegan tahay baalidi 12 habeenimo xilliga Washington sida ku qoran warka ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka go'aankan ayaa yimi xilli ay jirto baalidi jawi diblomaasiyadeed oo degan kadib wada hadallo culus oo dhawaan ka dhacay xarunta buuraha loo dalxiis tago ee wadanka Switzerland ee la yiraahdo Birkenstock halkaas oo ay kulamo saacado badan qaatay ku yeesheen wafuudda sare oo ka kala socday dhinacyada ku lugta leh heshiiska wadanka Iran iyo Mareykanka wararku waxay sidoo kale sheegayaan in heshiiska hordhaca ah uu ku saleysan yahay joojinta colaadaha fuudeynta marinka ganacsiga ee gobolka iyo sidoo kale ka shaqeynta furitaanka marinbiyoodka Hormuz iyo yareynta xanibaadaha saaran dekedaha wadanka Iran madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa ku tilmaamay wada hadalladii la gaaray in ay ahaayeen kuwa isbedelo waaweyn horseedaya marka la fiiriyo xaaladaha ka taagan gobolkaasi xilli dawladda Iran iyo waliba Washington ay ka shaqeynayaan isafgarad iyo heshiisyo lagu soo eebiyo colaadihii ka taagnaa gobolka haddana Washington ayaa markan xulfadeeda gobolka bariga dhexe ka iibinaysa qadiyadaha heshiiska iyo waxyaabaha Mareykanku uu ka damacsan yahay dawladda Iran mustaqbalka dawlado fara badan oo qaliij ayaa ka cabanaya hanaanka awoodeed ee sii taraya ee wadanka Iran
maadaama loolanka hadda uu u muuqanayo mid aan la iska indhatiri karin. wasaaradda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa shaacisay in xogayaha amuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu salaasada biri bilaabayo safar uu ku tagayo 3 dal oo qaliija iyadoo socdaalkaasi uu ku soo beegmayo xilli ay socdaan wadahadalo la xiriira heshiiska lala galayo dowladda Iran. afayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee Mareykanka Tommy Rigot ayaa sheegay in waxa la yiri Rubio uu booqan doono wadamada isutaga Imaaraadka Carabta, Kuwait iyo Bahrain oo kamid ah dalalkii dalka Iran oo si weyn u garaaceen xilliyadii dagaalka ay soconayeen ciidamada ilaalada kacaanka. inta lagu guda jira safarka Rubio ayaa la filayaa in uu kala hadlo marxaladaha dalalkaasi heshiiskiisa afgaradka ah ee lala galay Iran, dadaalada lagu xaqiijinayo marinka xorta ah ee maraakiibta isticmaalaan ee Strait of Hormuz, iyo sidoo kale muhiimadda nabadda iyo waliba xasiloonida gobolka Bariga Dhexe. wasaaraddu waxay sheegtay in booqashadan ay qayb ka tahay dadaalada Washington ay ku xoojinaysa baaliri iskaashiga dalalka qaliijka, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo saameynta heshiisyada cusub ee lala galayo Tehran iyo waliba xaaladda amniga ee gobolka Bariga Dhexe hadda la doonayo in heshiiskaasi laga iibiyo. iyadoo Mareykanka ay dadaaladaasi wadaan isla markaana ay muujinayaan sidii xalka madambaysa looga gaari lahaa colaadda dhinacyada xiriirka la leh Washington la doonayo in laga iibiyo mustaqbalka waxyaabaha ay Mareykanku ka doonayaan heshiiska dalka Iran. haddana dowladda Tehran ayaa bilaabaysa in xulufadeeda ay si weyn ula shaqeyso marka la fiiriyo xaaladaasi iyo waliba sida ay gaashaanbuur ugu samaysan lahayd gobolka. arrinta ugu weyn ee hadda taagan waxaa ka mid ah marinka Hormuz oo Iran ay doonaysa 60 maalin kadib inay dhaqaale ku soo rogto, taasoo Mareykanku uu ka ganacsacsan yahay. hase haatee cidda kaliya ay dhaqaalahaasi la wadaagi karaysa dowladda Tehran waa Iran ee waxay u aragtaa wadanka Oman. maalinta bariya wasiirka amuraha dibadda Iran iyo afayeenka baarlamaanka Mohammad Baqir Ghalibaf oo malafka wada xaajoodka qaabilsan ayaa u duulaya magaalada Masqad iyagoo kula kulmaya boqor Haytham ka hogaamiya wadankaasi Oman. ujeedadu waxay tahay isku soo dhawaashiyo laba dhinac ah in la sameeyo, iyadoo xitaa dowladda Washington ay horey u sameysay digniino kala duwan oo ku socday wadankaasi Oman haddii baa la yiri arrinta marinka Hormuz ay aragti iyo siyaasad kala wadaagaan dowladda Iran. warbaahinta dowladda Iran ayaa goor dhawey tabisay in gudoomiyaha baarlamaanka Mohammad Baqir Ghalibaf iyo wasiirka amuraha dibadda Abbas Araghchi ay u safreen dalka Oman si ay ula kulmaan boqorka saldanada Oman hogaamiya Hashim bin Tariq. wararku waxay tilmaamayaan in kulanka diiradda lagu saari doono xiriirka labada dal iyo iskaashiga ku saabsan dadaalada lagu doonayo in lagu xasiliyo gobolka Bariga Dhexe. sidoo kale wada hadallada ayaa la filayaa inay si gaar ah u taaban doonaan arrimaha la xiriira amniga marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz, kaas oo muhiim u ah gacankaasi ganacsiga tamarta iyo qulqulka shidaalka ee adduunka. booqashadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xilligan ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo la xiriirinayo xiisadda gobolka iyo heshiiska cusub ee lagu doonayo in lagu yareeyo khilaafaadka u dhaxeeya dalalka ku yaala Bariga Dhexe. dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxa ay shuruudo adag ku xirtay soo jeedintii Washington ee ku saabsanayd arrimaha la xiriira ama ku saabsan inay booqdaan guddi kormeerayaal oo ka socda hay'adda tamarta atomikada ee adduunka gudaha wadanka Iran, isla markaana ay booqasho ku sameyn doonaan arrimaha nuclearka. warkan ay soo bandhigeen dowladda Iran ayaa waxa uu noqonayaa mid Washington ka careysiin kara marka la fiiriyo sida ay hadda wax u socdaan. wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran ayaa sheegtay in wada hadallada ay la leedahay hay'adda atomikada ee qaramada midoobay ee la yiraahdo International Atomic Energy Agency ay sii wadi doonaan, balse ay Iran tahay inay u baahan tahay damaanadda heshiisyada iyo sidoo kale go'aamada baarlamaanka iyo golaha amniga qaranka ee wadanka Iran. wasaaraddu waxa ay sheegtay in Tehran ay si buuxda u ixtiraamayso heshiiska ilaalinta nuclearka, isla markaana ay ka shaqeyn doonto baa la yiri qaabka wada shaqeynta shuruucda gudaha iyo dibadda ee wadankaasi.
dhanka kale warbaahinta wadanka Iran oo soo xiganaysa ilo xog ogaala ayaa sheegay in wada hadallada ugu dambeeyay aan lagu darin baa layiri wada xaajoodka ku saabsan barnaamijka nuclear-ka isla markaana aysan Iran aqbalin wax ballanqaad oo cusub oo la xiriira arrintan warbaahinta ayaa intaa ku daraysa in mowqifka Iran uu wali yahay mid ku salaysan ilaalinta xuquuqda nuclear-ka iyo sidoo kale in aysan arrimahaasi heshiisku ay noqon doonin kuwa sidii la filayay ay hadda wax noqonayaan ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa ku dhawaaqaya amaba ku dhawaaqay in dalka Iran iyo iyagu hadda ay si weyn isugu soo dhawaadeen isla markaana wax badan oo ay filayeen hadda isbedelo waaweyn oo xooggan laga dareemay kusimaha madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa sheegay in wada hadallada ka dhacay Switzerland ay dhiseen aas wanaagsan oo lagu gaari karayo heshiis lagu soo afjarayo colaadda ka taagan gobolka Bariga Dhexe Vance waxa uu tilmaamay in Iran ay ogolaatay baaliyay in dib ay u soo celiso kormeerayaasha hay'adda tamarta nuclear-ka ee hay'adda IAEA taasi oo lagu tilmaamay talaabo muhiim ah oo hore loo qaaday oo ku wajahan baaliyay xakamaynta barnaamijka nuclear-ka dhoofinta saliidda ayaa si weyn loo kordhiyay ayuu Vance u sheegay warbaahinta isagoo ka hadlaya isbedelada dowladda Iran ay ka dhaxashay heshiiska la gaaray dhinaca kale wakaaladda wararka Iran ee Mehr ayaa sheegtay in dalkaasi uu dhoofiyay 36 milyan oo fuusto oo saliid ceeriina muddadii 5 maalmood ee la soo dhaafay iyadoo markii ugu horeysay dhaqdhaqaaqa is-afgaradka la dareemay tan iyo 18 bishan June aynu ku gada jirno warbixintu waxay xustay in ay wali kordhinayaan dhoofinta saliidda kadib hoos u dhac ku yimi intii lagu guda jiray dagaalada iyo waliba xanibaadda badda ee dalka Iran la saaray Lebanon iyo ka qaybgalka dagaalka ee wadanka Iran ayaa waxa uu sidoo kale ku soo hadal qaaday arrin kale oo muhiim ah Iran waxay sidoo kale sheegtay uu leeyahay in wakiil ay u diri doonto hanaan cusub oo kormeeraya xaaladda xabad joojinta Lebanon iyadoo Israel ay ka mid noqon doonto guddigaasi si xaaladda loo ilaaliyo xiisadda marinka Hormuz ayaa sidoo kale ahayd tallaabo kale oo muhiim ah oo dhinacyadu ay isla soo qaadeen caawa si xiisadda ugu dambeynta gobolka Bariga Dhexe ka taagan meesha looga soo saaro ikhtiyaartayna la socotay timinta caawa iyo barnaamijka faaqidaada qaybtan intaan ayaan ku akin doonaa warar kale ayaa noo soo socda ha hilmaamina YouTube-kana subscribe saartaan nabadgelo